waxay ahayd 27 Ramadaan waxaan ku riyooday riyo aad u qurux badan waxaan ku riyooday walaalkayga qaaliga Asad Xaajiyow oo lugihiisii dib ugu socday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نصعبت عن هذا كصاحبناي وإذن سلامي سلام الله عليكم مرة بعد إذن سلامي مرة هذا إذن سلامي سلام دير كدي وحرجينيا إن ضعفمات قبطان سيدنا أنا وضعفمات قبو وهرتين وفرديمانتي وحربينا عن كهذا البرنامج إن بدنا نسلها كهذا لكن أيضا إيروموبين لكن ما أنت عن جانس وهلي برنامج كنا ما أنتو حكوا سابسين ولا الكوين إله وين واحدة بس ولا الآن آدو قدريو هل كان أن آدو السلام يو Yes man, how are you doing man? Are you okay? I'm okay. Asad Xaajiyow, are you single? Yeah man, what's up man? How you doing man? Are you single? Yes, I'm single. Okay. waxaan rajaynaynaa ka jawaabi doontid hadduu ilaahay raalli ka noqdo walaalkayga qaaliga aad baan idiin salaamay adinka iyo dhammaan reer Xaajiyow anoona kala qaadaynin dumaashi ilaahay qaar badan ha idin wada siiyo asxaabi aad baan idiin jecelahay wallahi dar Allah idiin jecelahay Asad iyo Cabdullaahi arrimaheena Cumar ah wallahi dhamaantiin aad baan idiin jecelahay waxay ahayd 27 Ramadaan waxaan ku riyooday riyo aad u qurux badan ilaahayna haddaan ka toogayo inuu ilaahay hal mar riyadaas run ka dhigo yaa rabbi ilaahu riyadaas noo rume riyadu waxay ahayd waxaan ku riyooday walaalkayga qaaliga Asad Xaajiyow oo lugihiisii dib ugu socday ilaahayna ha u rumeeyo wallahi bilaahi tallah riyada waxaan leeyahay Asad indhaha inta laga xiray asoo ku fadhiyo kursiga inta indhaha laga xiraa waxaa la yiri Asad soo bax maanta meel aadayna markii meesha la geeyay waxaan leeyahay riyada waxa dhakhtar u ahay ninkaas oo daaweeyay Cabdullaahi Xaajiyow wallahi hortani riyada fiiri ajaa'ibkeeda wallahi billahi tallah been midin sheegay waxa daaweeyay oo la leeyahay aad loogu mahadnaqaya walaalkiisa ka weyn Cabdullaahi Xaajiyow Cabdullaahi Xaajiyow markii uu indhaha ay ka xireen ayaa waxa la yiri istaag waxa u maleynayaa meel cagaara meeshaas xitaa si fiican uma qala laakiin hadda ka hor filan inaad ku soo duubteen oo waliba aad galab ka tagteen meeshaas ay ilaahay meel cagaar ah inta filanka lagu duubay ma filanka oo Asad lugta gaariga inta gabadha kor kuga fadhiisato oo jabay meeshaas camaleeyay marka waxa garab ka qabtay arrimaheena garab kale tan Cabdullaahi indhiga loo fur waxa leeyahay waa socon kartaa hore u soco waa socon kartaa hore u soco markii la dhahay Asad wuxuu dhahay miigu dhadheelayeen Cabdullaahi wuxuu dhahay wallahi waa socon kartaa hore u istaag soco markuu Cabdullaahi wax yar uu istaajiyay laba tilaabo markii la qaaday tilaabada saddexaad markuu saas u sii qaadayo anigu hurdadii waa ka soo kacay walow aan jeclahay riyadaas meesha ay ku dhamaanaysay inaan ogaay haddana maadaama ay ahayd waqti dambe 8 saac habeenimo sida u taqaaniin labada habeenimo meelaha saac ay ahayd waa ka soo kacay والله صلاة الليل دكدي كدبنا ولالكي قالي أسد حاجيو والله هو دعي أسي أنت مسلمين وحنا لكن أسد سقاس أنا بدعي وحن كلها أسدو ولالكي قالي إلهي عقل ما تام حبسيو والله قلبي يعني كاجعلنا قفكم مقال كيس قروح له مكانه لكن قلبي يسعى قروح له مكانه أسدو إلهي وحن كعبري عافي ما تام الدنيا عن قرب وحده إن شاء الله وأنا كعافي ما بينتهي ولو يدي منتهي ريتي ذا أو أنتو كل رياضي أنا رم وأركن لكن إن شاء الله إلهي وحن كبرياء أنا الرياضة رم وأركن ولا قالوا وحن كل هاي ملايكة هذه سو سلانتو سلانة وحاسق قاسي يجاسيسا ولالك أن در إلهي وجعلها السجنة Cabdullaahi Xaajiyow وحن كل ولا قالي أدبك وسلامي إلهي أكو شرفه وأكو جعلها در إلهي أكو جعلها أرميهنا سلوك كلاتو والله waxaan dhihi lahay dadka rabaan inay walaaltinimadu ay soo bartaan ama aanan ogeyn qiimaha walaaltinimada ay leedahay Cabdullaahi Xaajiyow ku daysadaan waxa idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh